Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa maalin jawigu uu wanaagsan yahay. Wax kasta waa ay qurux badan yihiin. Waa boqor dadka ku amar taagleeyo oo ay caabudaan. Waxa uu maskaxda ugu haysta ayaa ah in uu lahaa sixirool, kaas oo boqorka kii il ku xadaa aamusinayay. Mana aysan lahayn wax ay iskaga difaacaan. Waxa ay nolosha sidaas ku socotay, waxaa gabow ku yimid odaygii boqorka isku halayn jiray, dabcan saaxirkii. Waxa uu dalbaday in qof kale xilkan uu sii hayo boqorka si ay maskaxda ugu sii haystaan ummaddan ay jahliga ka faa'iidaysanayaan. Waxaa loo keenay wiil aad u yar oo uu baro sida dadka maanka loogu qabsado ama sixirka loo sameeyo. Waxay xilliga isgedgediyo waxaa maalin wiilkii oo ku sii jeeda saaxirkii ayaa la kulmay nin ay maskaxdiisa xukumin saaxiriinta, yacnii caabudin boqorka oo keligiis iskaga caabuda Allah subxaanahu wa tacaala. Wiilkii waxa uu u sheegay in boqorkaas iskaga dhigo Allah ay caabudaan dadka oo idil. Waxa uuna u sheegay ninkii in uu been sheegayo boqorkaas, uuna baray tawxiidka saxda ah. Waxa uu wiilkii noqday mid mar walba ka soo daaha saaxirka iyo guriga. Mar walba waxa uu mutaysan jiray garaacis kaga timaada waalidkiisa iyo saaxirka. Siday arrinta jawigaas ku socotay, waxaa maalin waddada iskugu jaray bahal. Waxa uu wiilkii damcay in uu ku tuuro dhagax, taas uu ku tawakkal saaranayay Allah subxaanahu wa tacaala. Waxa uuna yidhi, haddii ay sax tahay Allah uu caabuda ninkaasi, waxaan ku tuurayaa dhagaxan, isla markaasna xayawaankan waa uu dhimanayaa. Balse haddii ay been tahay, xayawaankan meeshiisa ayuu joogayaa. Sidaas ayaana dhacday oo xayawaankii bartaas ayuu ku geeriyooday. Sug. Waa maxay sheekada magaceeda? Inooma sheegin ileen marka koowaadee. Waa runta, sheekadan magaceeda waa Asxaabul Ukhduud. Wiilkii waxa uu xaqiiqsaday in saaxirku yahay mid qaldan. Waxa uuna Allah baray wiilkaas yar cilmiga caafimaadka. Waxa uuna daaweyn jiray cudurrada halista ah sida indhoolannimada, baraska iyo wixii la mid ah. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa soo booqday wasiir ka mid ah wasiirada boqorka, midkaas oo ka cabanayay cawarnimo ama indhoolannimo, kaas oo doonayay in uu u soo laabto araggiisa. Waxayna dadka ugu sheegeen in uu yahay wiilkaasi mid aragga soo celiya. Wiilkii waxa uu ku yidhi, waxaan ku siinayaa wax kasta oo aad doonaysid, keliya araggayga soo celi. Waxa uu ku yidhi wiilkii, marka koowaad aniga aragga ma soo celiyo, ee waxaa laga yaabaa in aan sabab u noqdo soo laabashada araggaada. Tan labaad, wax hanti ah markaa doonayo, ee waxaan doonayaa in aad qirtid Allahna abuuray aniga iyo adiga, dadka oo idilna abuuray. Wasiirkii sida ayuu yeelay, waxaana u soo laabtay araggiisa kadib markii wiilkii yaraa u duceeyey. Wiilkii markuu u duceeyey kadib, wasiirkii waxaa u soo laabtay araggiisa. Wasiirkii wuxuu ku soo laabtay booskiisii, waxaana su'aal weydiiyey boqorkii, war maanta wax miyaad arkaysaa mase anigaa mooda? Wasiirkii ayaa la dhahay. Waxa uuna ku jawaabay, haa waan arkayaa, waxaana ii soo celiyey Allahna abuuray anaga oo idil. Boqorkii waa uu dhoola caddeeyey, waxa uuna dhahay aniga. Markaas ayaa wasiirkii dhahay maya, ee Ilaahayga aniga iyo adigana abuuray, dadka oo idilna abuuray. Boqorkii meeshaas ayuu ku xanaaqay, wuxuuna cadaabis ba'an ku bilaabay wasiirkii. Wasiirkii waxa uu sheegay wiilkii yaraa, wiilkii asigana waxa uu sheegay ninkii. Waxaa meeshaas lagu dilay wasiirkii iyo ninkii kadib markii ay diideen in ay ka laabtaan. Balse dib ayaa loo dhigay wiilkii yaraa, sababtoo ah wuxuu hayay kansiga sixirka. Wiilkaas waxaa la saaray buur, kadib ayaa la weydiiyey, ma ka laabanaysaa? Maya ayuuna dhahay. Waxa uuna ku ducaystay, Ilaahayow iga kaafi wax kasta oo aad doonaysid, Allaahumma ikfinii bimaa shi'ta. Waxaana soo daateen ciidamadii dhammaantood asigoo ku haray wiilkii. Wiilkii dib ayuu u soo laabtay asigoo ugu soo laabtay boqorkii. Boqorkii mar labaad wuxuu ciidan ku daray wiilkii, waxaana la geeyey badweynta. Isla sidii ayuu ku ducaystay wiilkii.
wuxuu dhahayay allaahumma kfinii bimaa shi'ta. ciidankiioo idil waxay ku daateen badweynta. wiilkii ayaa soo haray. wiilkii waxa uu soo qaatay doontiisa asigoo ku soo laabtay boqorka. boqorkii asigoo yaaban ayuu ku dhahayay war adigu maxaad ahayd? markaas kadib ayaa wiilkii ku dhahay aniga waxaan ahay bini'aadan caadi ah. waad i dili kartaa balse aan kuu sheego sababta ku xiran dilkayga. boqorkii oo dhowlo caddeeyey ayaa ku dhahay bal ii sheeg. wuxuu yidhi marka koowaad waxaad iskugu wacaysaa dadka magaaladoo idil adigoo fagaaro isku keenayo. waxaadna i keenaysaa anigoo xirxiran. kadib waxaad qabanaysaa falaartaada adigoo igu soo aadinayo. markaas ayaad u leedahay si cod dheer ah waxaan ku dilayaa sababta rabbiga wiilkan. wiilkii sidaas ayuu ku dhintay. dadkiioo idil waxay dhaheen waxaan rumaynay wiilkan ilaahayiisa. boqorkii wuxuu go'aansaday in uu gumaado dadka oo dhan. waxa uuna ku tuurayay dab hulcaayo oo uu ka qoday jidadka labadiisa dhinac. balse waxaa baqatay hooyo taas oo sidatay dhalaan yar oo ay dhashay. waxaa ka sii yaabiyey oo iimaankeeda xoojiyey in cunugeedii yaraa ku dhahay bishaarayso hooyo. sidaas ayay ahayd taariikhdii asxaabul ukhduud. wax kasta oo qaali ah waxaa loo maraa dhib. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.